ansanda CH3 okay silsiladana waa ku dhajisanay maxaa kale ku haray marka inta kale hydrogen ku buux carbon-kan koowaad hydrogenada 3 ayaa u soo haraysa hal dabar inta ku qabsanaya because carbon walba waxa laga rabaa 4 dabar buu leeyahay carbon-ka hal inta ku qabsanaya halna kaas kale ku qabsanaya waxa u soo haraysa 2 u buuxi kan 3 ayuu ku haystaa halna kan ku haystaa 4 dabar u buuxda kan afraad ama 3 kan ku haystaa halna wuxuu ku qabsanaya kan waa u buuxda shanaad midka shanaad hal waxa ku dhagan ethyl ku dhagan halna waxa way carbon-ka kale ku haystaa halna carbon-kaas kale ku qabsan doona waxa u soo hari doona hal hydrogen oo umo carbon 6 asagana hal midkaan ku haystaa halna midkaas ku haystaa waxa u soo hari doonta 2 labadiisa C kan kale sidoo kale 2 C kan ugu dambeeyana CH3 waaye ayay hal midkaan ku haystaa 3 u soo hartay 3 C hadii lagu yiraahdo sawir wixii lagu siiya waxay doonaan noqdeen silsilada sidaas ayaad marka hore u taxaysaa tirada waxaad dana fiirinaysaa waxaan ku soo guda jirnay 10 chemistry-ga form 4ka galaaska chapter-ka koowaad waxaan bariyahan soo magacaabaynay ALkyne maanta waxaan joognaa ALkyne oo ugu dambaysa YNE ay u dambayso ALkyne waxa uu ka mid yahay groupka unsaturated organic compound isku dhisyada undergenine oo hadduu noqdo ama micnaha isku dhisyada undergenine waxa waaye marka laga reebo alkiinka oo hal dabar leh kuwa kale kan labada dabar leh kan saddexda dabar leh waa isku dhisyada aan micnaha undergenine waxay ka kooban yihiin carbon iyo hydrogen iyo ugu yaraan triple bond triple bond inuu ka kooban yahay hydrogen iyo carbon iyo 3 dabar ayaa lagu yaqaanaa meeshan waxa ka muuqda formulahiisana inuu yahay CnH2n-2 marka hore aan ka soo hadalnay waxyaalaha markii macnaha formula hadda waxaan ku xaqiijinaynaa maadaama ay macnaha meeshan hadda noogu taala hal example oo waxa noogu yaala 1 2 3 4 maadaama hadda maanta isku dhiskeena 4 carbon ka kooban yahay 4 waxaan ku dhufanaynaa number of hydrogen that is 2 wixii soo baxan waxaan ka jaraynaa 2 waxaa soo baxaysa 8 minus 2 you get what 6 inay 6 hydrogen noqoto ayaa laga rabaa marka 3 hydrogen ayaa inta ka haysanaa 3 plus 3 that is 6 marka waxa waaye formuladeena waa ku soo baxay isku dhiska meesha noogu yaala marka magaciisa maxaa la yiraahdaa meesha waxaa noogu taala 4 carbon waa bute waxa ugu dambeeya oo dibgelihiisa uu yahay YNE hadduu yahay 3 triple okay markii la magacaabayo marka naming ALkyne markii la magacaabayo marka sidee loo magacaaba magacaabista waxaa lagu leeyahay isku mid weeye marka ALkyne iyo ALkyne la joogo waa isku magacaabid oo rulka la marayo waa isku sax oo waa isku mid oo tusaale ahaan tirinta meesha ka bilaabaysa branchiga meesha uga dhageysa xagee tirada laga bilaabay markaan hore fiidiyoyaasha hore ayaan ku soo faahfaahinay midkan wuxuu uga duwan yahay meesha uu ku dhamaado ama dibgelihiisa suffixkiisa waxa laga rabaa inay ku dhamaato YNE oo halka hadda u dambaysa YNE ayaa la rabaa inay u dambayso taas waa mid anaga nagala rabo inaan maskaxda aan ku hayno inta kalena waa isku rule ayaa loo apply gareynaya ama loo isticmaalaya hadda silsiladan ayaan u maanaynaa oo aan ku apply gareynaynaa bal waxaan ka soo bilaabaynaa meesha triple bond ku dhow ayaan ka soo bilaabaynaa ma fiirinayna branchi 2 3
afar shan silsilad ka kooban 6 carbon ayaana la siiyey oo uu ku dhagan yahay carbon 4 uu ku dhagan yahay waxaa meeshan ka jira 3 dabar ayaa jirta oo u dhaxaysa carbon 2 iyo carbon 3 waxaa jirta branch ku dhagan carbon 4 oo ah methyl. Therefore the name of this compound will be what? 4-methyl. Double bonding triple bonding hagu dhacay 2-hex hexine YEN baa dambaysa 4-methyl 2-hexine. You see, sidaas ayaa loo magacaabayaa. tirada lagu siiyaa ayaad fiirinaysaa, triple bond meeshuu dhacaad fiirinaysaa, branchiga ku dhagan ayaad fiirinaysaa. rulkana waa isku mid. haddii wax ka badan 2 iyo 3 ku dhagaan waxaad fiirinaysaa alphabetical order. That's how you are supposed to name a compound. sida laga rabo inaad u magacaawdo compound isku dhis hada arto waa sidaas. Okay, sidee loo darowgareeyaa? sida loo name gareeyo waa soo aragnay. hadda sida loo darowgareeyo balaan fiirina. tusaale ahaan haddii lagu yiraahdo sawir the structural formula qaab dhismeedka ama qaacidada formulaha 5-ethyl 3-octane sawir waa lagu yiri. marka ugu horeysa waxaa horta ogaataa octane-ka lagu siiyey ama tirada lagu siiyey octane, hexine, octane waxay noqota in 8 carbon ay ka koobanta barantigeyntaada. hadda octane ay tahay 8 carbon, 8 carbon ba sawirayna 1 2 3 4 5 6 7 8 carbon ayaa ay sawiran. triple bond xaguu dhaca 3 meesha doonan ka riday markaas 1 2 3 triple bond halkaas riday 5 maxaa ku dhagan ilaa tirada haddii marba triple bond ay dhacday tirada iska taqaanaa daddan iska haysa 1 2 3 4 5 6 7 8. okay, marka 5 ayay dhacdaa. 5 iga bixi oo igu dhaji ethyl C2H5 ansanda CH3. okay, silsiladana waa ku dhajisanay. maxaa kaloo ku haray marka? inta kale hydrogenada ku buux. kaarboonkan koowaad hydrogenada 3 ayaa u soo haraysa hal dabar intuu ku qabsanaya because kaarboon walba waxa laga rabaa 4 dabar buu leeyahay. kaarboonka hal intuu ku qabsanayaa halna kaas kale ku qabsanaya waxa u soo haraysa 2 u buuxi. kan 3 ayuu ku haystaa halna kan ku haystaa 4 dabar waa u buuxdaa. kan afraad ama 3 kan ku haystaa halna wuxuu ku qabsanayaa kan waa u buuxdaa. shanaad midka shanaad hal waxa ku dhagan ethyl ku dhagan halna waxa way kaarboonka kale ku haystaa halna kaarboonkaas kale ku qabsan doona waxa u soo hari doona hal hydrogen oo umo carbon 6 asagana hal midkaan ku haystaa halna midkaas ku haystaa waxa u soo hari doonta 2 labadiisa C kan kale sidoo kale 2 C kan ugu dambeeyana CH3 waaya ayay hal midkaan ku haystaa 3 waxa u soo hartay 3 C. haddii lagu yiraahdo sawir wixii lagu siiya waxay doonaan noqdeen silsilada sidaas ayaad marka hore u taxaysaa tirada waxaad dana fiirinaysaa branch meesha uga dhagan tahay triple bond haddii jirta double bond haddii jirta meesha uga dhagan tahay sidaas ayaad magacaabaysaa 5-ethyl 3-octane. sidaas ayaan ku soo magacawnay. waxaan hadda ku dhex jirnaa waa iska buugga manhajka. hadda substituted halogenes ayaan geli doonaa oo aan kasoo diyaarin doonaa. iyadana way iska fududahay oo markii ay soo galaan halogenada sida fluorine iyo chlorine iyo bromo iyo iodo lagu soo dhejiyay sida meesha hydrogenta lagu bedesha ayaa isagana loo yaqaanaa. marka casharkan maanta intaas ayaan ku ekeysiinaynaa. waa ku mahadsantihiin daawashadiina. fadlan hala share gareeya
si ay uga faa'iidaystaan ardada kale ee Soomaaliyeed ee waxdananaysa. aad iyo aad mahadsantiin. anigana waxaan ahay Ustaad Jabras Sisay.